hambalyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan dal iyo dibadda meel walba ay joogaan gaar ahaan waliba shacabka sharafta leh reer Jabuuti horta hambalyada waa la soo daho wanaagsanay laakiin dhib male war inaga farxiyo ayaan idinka dabageynayaa hogaamiyaha Afrika ugu ayaanka daran ugu nasiibka daran haddaad maqli jirtay musiibo ayaa hebel ku dhacday Raila Odinga horta ku dhacday ninkii Maxamuud Cali Yuusuf Ahana shalay caalamku waa ka yaabay waxa la yiri war Soomaalidu weligood ba sida bay ahaayeen baa la yiri Soomaalidu meel walba ay galaan waa sida baa la yiri waxaad ku aragtay nin daqiiqado yar oo 10 minute ka yar oo haysto ku soo kooba luuqadii adduunka ugu weynaa oo dhan ku qudbeeya haddana madaxdii ku qanciya wixii shalay ka dhacay magaalada dhisaba horta wax loo dhiga lama arkayo waxa taa ka daran duqi Raila Odinga musiibo ku dhacday annagana musiibo naga galay Soomaalida dhibaatadii uu ka galay baa haysata Raila Odinga ayaan daradii Soomaalidu run ahaantii way soo baxday horta xaqeeni iyo dhibaatadii ninka uu geystay 40 sano u biiro hortaagnaa oo Soomaali u duleystay oo xuquuqdoodii iyo waxoodoo dhan ay ku waayeen sidii Raila Odinga loo lahaa Kenya kile waxay leeyihiin sasa sisi kama wananchi wa Kenya tunataka tumwambie Raila ya kwamba hii kitu ya EU kianguka uende ufanyie maandamano Ethiopia. Maana sisi Kenya tumechoka na maandamano. Sisi tumechoka na maandamano bwana. Sasa hii Kenya kuna corruption, uchumi iko mingi, alafu tena ulete maandamano hapa. Sisi hataki. Dibadbax ka dhig baalay. Dibadbaxyada maandamada ka dhigta dalka Kenya ana waa ku daalay baalay Kenya taana. Maandamada waa ku daalay waxaan ugu soo noqon baalay. Ethiopia meelaha iska joogo dibadbaxyo ka dhig baalay Ethiopia. muuqaalkan waxaan ku soo koobi doonaa doorashadii gudoomiyaha komishinka ee midowga Afrika ee shalayta ka dhacday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. midowga Afrika goorma la aasaasay maxay tahay shaqadiisu gudoomiyaha midowga Afrika muxuu qabanayaa maxaa Soomaalida dan ugu jirta wadanka qabto maxaa dan ugu jirta maxaa mishaaro laga qaataa maxaa shaqaalaha uu sameyn karaa muxuu caalamka ka dhaadhicin karaa ama wadankiisa uu ku soo kordhin karaa maxay tahay xamaasadda gaarka uu leeyahay gudoomiyaha midowga Afrika in ka badan 30 aan dhahay 50 iyo 4 wadan ay isku imaadeen 55 wadan weeyaa la yiraahdaa Afrika ay ka kooban tahay qaaradda Afrika 55 dal baa la yiraahdaa laakiin 54 ayaa la isla waafaqsan yahay oo la isla ogol yahay hadaba maxay tahay ahmiyadda gaarka ah uu leeyahay muxuu dalka ku soo kordhinaya maxay tahay caalamka dhawaha isha loogu hayo gudoomiyaha midowga Afrika xagee ayuu ka shaqeeyaa xafiiskiisu waa xagee waa dul istaagi doonaa xogahaas oo dhan ayaan ka dabageyn doonaa miishaarkiisana waa kugu darayaa oo shakhsiga madaxweynaha ama gudoomiyaha midowga Afrika noqda oo qaadanayo iyo dalkiisa waxa uu soo kordhinaya soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina nagula wadaaga qaybta commentiga waa reaction ma aha qodobadii wararkeena akhrin jirnay ee taqaaneen laakiin xogo muhiim ah oo aad iyo aad u macaan ayaa ku jira oo ka dabageynaya naadsanidin aynu ku bilownay shalay waxaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia lagu soo gabagabeeyay doorashada gudoomiyaha midowga Afrika oo qabanqaabadiisa sanadkii ugu dambeeyay ay soo socotay waxaan ogsoonayn bilowgii sanadkii 2024 inay kursigaasi u soo tartamayeen xubno dhowr ah oo waliba ay ka mid tahay wadamo dhowr oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo gabadhii Foosiya Xaaji Aadan ahayd Foosiya Xaaji dabcan waa saxaran maraynaya xildhibaan Foosiya ay ka mid ahayd musharaxiinta oo waliba iyadu Soomaaliya ay u taagnayd kadibna ay ka wareeshay xilli gabagaba uu yahay oo dhowr bilood ay ka dhiban tahay doorashada gudoomiyaha in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gabiyaha baarintaas uga baxay oo uu taageeray mid ka mid ah wadamadii markaasi u tartamayay kursiga gudoomiyaha midowga Afrika waxa isku soo haray 3 wadan ugu dambeyn waxba yar warkay ugu daaleenin waa Djibouti Kenya iyo Madagascar 3 wadan ayaa isku soo haray oo miiska tartanka iska xaadiriyay oo Addis Ababa tartan ku galay wareegii koowaad ba ninkii Madagascar waa laga soo tagay budka lagu tuntay waxa isku soo haray ninka la yiraahdo Raila Odinga iyo ninka la yiraahdo Maxamuud Cali Yuusuf oo Soomaali Djiboutian ah 20 sanana ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti 20 ka sano ka horna ahaa safiir
meelo kala duwan ka soo noqday oo Jabuuti uu fadhiyay nin khibrad badan leh luqado badan ku hadla aqoon badan caalamka ka yaabsaday la yaabay oo leeyahay warkan muxuu ahaa war Soomaalidan maxay ahayd war ummadan maxay ahayd luqada Soomaaliga ku hadlaya anfartu ku hadlaya Faransiisku ku hadlaya Ingiriisku ku hadlaya Carabigu ku hadlaya kuwa kale inuu sideeyay waa suurtagal oo waliba sida luqadiisa hooyo ugu hadlaya ninka isaga ayaa marka iyo Raila Odinga oo isagana 40 sano siyaasadda dalka Kenya ku soo jiray oo micnaha tartan ku soo jiray oo waxa weeye maguuleysta ah ayaa fooda istaray wareegii koobaad wareegii labaad labadaba Raila ugu sareeyay wareegii saddexaad ayaa la garan waayay waxa uu sameeyay ninka la yiraahdo Maxamuud Cali Yuusuf hal mara ayuu kor ka maray Raila Odinga iyadoo dalka Kenya ay u dabaaldegayaan shacabka Kenyaanka ay u dabaaldegayaan in Raila Odinga uu ku soo bixi doono oo markan uu mashquuli doono Raila Odinga haddaan idinka dabageeyo Raila Odinga muddo badan buu siyaasadda ku soo jiray wuu inta madaxweynenimada waaweynay markuu madaxweynenimada waayana wax u lagu mashquulinayay mar wax lagu mashquuliyay mar wax lagu mashquulinay way lahayd waxaan ogsoonayn isagoo Kibaki la tartamaya 2007 in xaaladda dalka ay qasantay dilal badan dhaceen dhibaato badan dhacday kadib waxa lagu qanciyay wax la yiraahdo ra'iisul wasaare ayaa loo tuuray oo uu 5 sano ahaa intii ka dambeysay inta waaweyn ilaa 10 jeer ka badan ayuu Raila Odinga kursiga miiskariyay madaxweynenimada dalka Kenya oo uu tartamayay marka Raila Odinga naftigiisu marka laga fiiriyo de waxa weeye nasiib la'aantiisa mooyeene waa nin saameyn badan geeska Afrika marka la yiraahdo xagga aqoonta marka la yiraahdana waxa uu kamid yahay siyaasiyiinta ugu aqoonta badan buu kamid yahay oo lagu tilmaamaa waa nin waayaanago muddo badan soo joogay 40 sanana de wax yar maaha ilaa 50 sano badhe waa nin inta uu siyaasadda ku soo jiray oo geeska Afrika qasay waliba dadka siyaasiyiinta markaasi mucaaradka ama ha noqdaan ama markaasi Afrika talooyin ha ka bixiyaan marka aad loo hadalhayo ayuu kamid ahaa marka laba nin oo marka adag baa foodaystaray ugu dambeey waxay guushu raacday Maxamuud Cali Yuusuf oo Jabuutiyaana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti 20 sano wasiir arrimaha dibadda soo ayaa boodka kula tuntay ninka la yiraahdo Raila Odinga halkaas ayuu salka dhulka ku dhuftay Jabuuti bay guushu raacday horta Jabuuti waxa leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan hambalyo leeyahay guushaas waa guul loo soo wada hiyotay waa guul waxa weeye dalkeena Jabuuti u soo hiyotay shacabkeena reer Jabuuti u soo hiyotay hambalyada horta iga soo gudoomer reer Jabuuti halka waxaan ku qiimeyn doonaa dadka reer Jabuutiyaanka ay daawadana waa ku qiimeyn doonaa yaan la inaga kormarin baa leeyahay xagga soo dhiibashada aragtiyada luqadda doontiina ku soo qora aniga naftiga Faransiiska xogaa waa ku yar fiicanahay ku soo qora hadaad rabtiin taasi horta waa midda shacabka Kenyaanka aanu soo noqonne yaaba ninkii Raila Odinga waxay ku leeyihiin haddaad weyday kursigii oo aad weyday nin nasiib la'aan oo mucjiso haysataa tahay haanu soo noqonin baleeyay mandhamadhada anaga waxa weeye tabar oo ma hayno waa ku soo daalay Kenyaan haddaan nahay waan ku rafaadnay waxa weeye wadankan isaga musuqmaasuq iyo corruption iyo dhibaato ay haysataa sida awgeed haanu soo noqonin baleeyay oo xagee joogay Ethiopia mandhamadha ka bilow Ethiopia mandhamadhada Ethiopia ka bilow baleeyay oo halkaas naga joog baleeyay kommentiyada markaad fiiriso warbaahinta dalka Kenya iyo sida loo qorayo qaar waxa weeye dadka activists waxa weeye bulshada wax ku soo qoro markaad eegto waxa la wariyo war ugu soo laaban isagana su'aal baa la weydiiyay warbaahinta dalka Kenya su'aal weydiisay soo waliba hoolkii laga guuleystay jooga oo garbiis ay taagan yihiin wasiiradii ugu waxa weeye ugu tunka weyn dalka Kenya ay taagan yihiin waliba Aadan Barre Ducaale uu kamid yahay saan loo taagan yaa la yiri maxaad sameynaysaa هذا waxaan sameeyaa inaan dalka ku laabto guriga hooyada waxaan doonayaa inaan Kenya ku noqdo hawl badan ba iyo loo rabaa inaan qabto hawlaha qabanay maxay tahay Kenya u yaal waa madamaara inuu qabto weeye madamaara dalka Kenya waa ku soo daalay shacabkiyaanku waa ku soo daaleen waa ku soo dhibaatoodeen Soomaalida ayaa kamid ah dadka uu dhibaateeyay ninka la Raila Odinga xaqiiqada marka ka hadla way Soomaalida waa dhibaateeyay ninkan waa nala degay North Eastern waxa horumar la'aanta ka dhigay dhibaatada ka dhigay waxa weeye Soomaalida loo faquuqay Soomaalida loo nacay waa mucaaradada ay ku jiraan marka xaqanagiba Ilaahay ka soo bixi waxa weeye inkaartu naga galay ba haysata
mucjiso weeye mucjiso waa mucjiso ma guulaysto weeye meel aan u socono weeye meel looma socdo bal u fiirso siyaasi walba oo Raila Odinga usoo campaign gareyn jiray iyo ganacsado walba oo Raila Odinga usoo campaign gareyn jiray iyo waxa weeye xildhibaan walba oo Raila Odinga xisbigiisa usoo campaign gareyn jiray waa ka haray dalka dhaqaale ma hayo waxa weeye aqoonsi ma hayo oo xildhibaan saxad iyo mas'uul sax looma aqoonsano waxba ma hayaan iyagoo wada bur xataa ragga ganacsatada ay xilligiisa dhaqaalaha haystay kulli way kacay dhaqaalaha baa ku dhacday dhaqaalaha baa ku dhacday marka waa nin nasiib xun weeye nin nasiib xun weeye ugu dambeyn marka ninkaas anigu waxaan leeyahay horta Soomaalidu hadda waa fahamtay oo waa iskaga baxday oo waxa weeye asaabta kale dalka Kenya la galay oo run ahaantii Soomaalidii dalka Kenya ee taageeraysa waa la iskaga tagay cid walba dhacday aniga oo waxa weeye 2012 ilaa 2010 iyo wixii ka dambeysay taageersanaa yaa nacayba ninka oo waxa weeye mar dambe meelu taagan yahay iyo wuxuu wato iyo wixii satoona sawso adduunka waliba aan waxa madhilaaba arsabaha lagu xidhaan lahaa yaama fara qaydi meelaha ninkaana laga xidhayo ugu soo noqon madamaanadiisa iyo dhibaatadiisa iyo qallaansiisa iyo qacdiisa ma karaysamay marka ninka horta marka waa nin nasiib la'aana oo mucjiso ku dhacday weeye mucjiso ku dhacday inkaartii Soomaalida ku dhacday oo qiyaamay ee dhibaateeyay ee uu lahaa sanadka soo socon guuleysanayna barwaaqan ka dhigaya ben iyo waxa waxba ka jir waa niman meel soconay aabihi iyo ummadooda oo dhan baa habaartay jalwadi baa ka carraysa ninkana jalwu ka soo jeeda qubiyada labaad buu ka soo jeedaa ee dalka Kenya marka waxa weeye ummadii oo dhan baa habaartay oo le kuma rabno daraaya kugu dhacday baa la leeyahay marka horta musiibadaas baa yani keeshay hadii aynu u soo noqono kursigan muxuu yahay muhiimada gaarka ee uu u leeyahay Afrika muxuu qabanaya mishaarkiisu waa meeqa muxuu ku soo kordhinayaa dalka Djibouti horta wuxuu ku soo kordhinayaa horta miiska Afrika lagala hadlayo ee dalalka Yurub ama qaaradaha Yurub Amerika iyo Asia ba ay kala hadlayaan adduunka Afrika wuxuu kala hadlayo waa gudoomiyahaas soo fariisanaya lacag malaayiin lagu soo qaadaa oo hay'adaha adduunka dhaqaalaha bixiya lagaga soo qaadaa oo markaasi lagula dagaalamayo saboolka waxa weeye kor qaadida dumarka iyo xuquuqdooda daryeelka carruurta tayeynta carruurta iskuul waxa tayeynta waxbarashada ama kor qaadida waxbarashada caafimaadka cimilada wax lamida ayaa lacag malaayiin lagu soo qaadaa xafiiska marka African Unionka ayaa manage gareeya oo maamula oo waxa weeye qoondeeya wadankay rabaan bay marka u qoondeeyaan waxa intaas si dheer nabadeynta iyadana gudoomiyaha ayay u taala shaqo badan baa u taala nabadeynta Afrika waxa ay ogsoontii meel walba dagaal baa ka dhacaya marka budgetyada la iska qoranayo adduunka laga soo qoran leeyahay wadan hebel dhibaato ka taagan intaas bilyan buu baahiye nabadgelyadiisa laga shaqeeyo loo baahiye waxa soo dhan marka lacag malaayiin marka lagu cunaya ninka marka gudoomiyaha ama commissionka wuxuu samayn karaa hay'adaha internationalka naftirkooda ee adduunka ugu waaweyn ee uu la macaamilayo shaqaalo ayuu geysan karaa oo dalkiisa geyn karaa dhaqaale badan oo fara badan buu uga soo qaadi karaa dalkiisa sumcad bay naftirkiisa u tahay dalkiisa inuu uu qabto kursigaasi miiska la fadhiyay markaad laga soo tago gudoomiyaha commissionka inaad tahay haddana nin Djiboutiana fadhiya marka faa'iidooyin badan baa ku jira mishaarkiisa isaga uu qaadanayo waa $20,000 bishii $20,000 buu qaadanaya saddex waxa weeye sano ama 4 sano uu joogo hal mar baa haddana la jiblaysan karaa oo lacag malaayiin dollar oo meel ku shubanaya marka mishaarkiisu waa $20,000 weeye marka dhinac walba marka laga fiiriyo marka faa'iidooyin badan ayaa dalkiisa uu u soo hooyin karaa oo ummadda reer Djibouti u soo hooyin karaa Soomaaliya naftirkeeda oo run ahaantii ku dulmanayd kursigan dhibaatooyinka inta uu socdayna wax lagala qabtay haba yaraadee oo Soomaaliya ay ka faa'iideeyaan jirin faa'iidooyin badan baa ugu jira maadaama ninkan uu yahay nin Soomaali oo luqad Soomaali ku hadlaya Djibouti waa walaaladeena waa shanta Soomaaliyeed kamid ah waxa weeye faa'iidooyin badan baa ugu jira hadii sida ay tahay uga faa'iideeyo marka kursiga marka ahmiyad gaar ah ayuu leeyahay macnaheedu waxa weeye hadda wixii ka bilowdo Djibouti ba haado Djibouti waa wadan Soomaaliyeed weey dabcan marka maanta markuu miiska adduunka u fadhiisto nin Soomaaliya Afrika dhan madaxka sharaf baynaya naftirkeena marka inoo tahay taasina marka waa midaas oo faa'iidooyinkaas ayuu leeyahay 2002 ayaa la asaasay midowga Afrika xaruntooduna magaalada Addis Ababa ayay ku taala inta way soo socotay Soomaaliya ma qabanin Kenya ma qabanin Djibouti ma qabanin
waddan kan hadda uu tartamaya ma qabanin dhowr waddan waxaan u malaynayaa 5 waddan meelahaas baa qabtay marmay South Africa iyo Chad ayaa ka xusuusta waddan marka 5 waddan meelahaas baa yaa qabteen inta kale ma soo qorin oo macnaha ma soo qorin laakiin ilaa 5 waddan meelahaas baa qabteen marka waa xubin marka meerta ah kursiguna waa meerto Soomaaliyana Britain inay qabataan rajeynayna Kenya inay qabataan iyadana rajeynayna oo Kenya run ahaantii anaga naftigeena aad baan ugu haweenay in kursigaasi Kenya ay qabato naftirkeeda waa raba laakiin xilligeeda ay sugan doontaa oo qaban doontaa waynu eegi doonaa marka kursigan shalayta waxbuu kala saaray odaygii macaanka kahana budka lagu tunto dulka la qaatiyay Kenya sharafi uma taalo oo meel ku soo noqdo ma aragno waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho haddii aan